gacanka hadalkan ayaa ka dhashay fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo lagaga doodayay xeerka wadamarista cashuur kordhinta oo uu dhawaan u soo gudbiyay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan kadib soo gudbintaasi xildhibaanadu waxay dood adag oo la ismari waayay ay ka doodayeen muddo 2 cisho ah kaasi oo markii dambe dhaliyay ismaandhaaf iyo gacan saar mudanayaasha dhexdooda ah waxa imika halkan xeerka soo gudbiyay guddiga jaanda ama guddiga arrimaha bulshada oo aan xaq u lahayn guddiga arrimaha bulshada oo aan xaq u lahayn inay golaha hor keenaan xukuumaddan iyo isbeddelaan eegayay shacbigeeda shilinka la saaro neefka adhiga ah isagoo taban jibaaro dib ugu soo noqonaya oo neefka adhiga kuwa wata markay hadhowta xoolo ama markay raashin ku soo beddeshaan waa la tobanlaabaya waxaan filayay in xeerkan xukuumaddu iyadoo ku xisaabsanaysa waqtiga shacbigeedu ku jiro iyo baahiyaha dhaqaale xumeed taagan أنا أريد دليل لقاضي عشور وهاي هاي إلى وحيابها